Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabteeni aan jecelnahay. Runtii aad baan u faraxsan yahay. Farxadda waxay ii keenaysaa barnaamijkan saan u bilaabnay. Asxaab fara badan ayaa nagu soo biireen. Runtii gacmo furan ayaan nagu soo dhaweynaynaa. Waxaa jiri nin boqor oo caadil ah. Waxaa loo dhalay wiil ayaa loo dhalay. Runtii wiilka aad buu u jeclaa. Markasta wuxuu ku fikiri jiray markuu dhinto oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala oofsada wiilka inuu dhaxli doono sharaftiisii, inuu dhowri doono ayuu markasta ku fikirayay. Maalin maalimaha ka mid ah boqorkii wuxuu waday wiilkiisa ayuu waday. Wuxuu u geeyay macallin aqoontiisa sareyso, macallin xikmad badan. Markuu u geeyay ayuu u sheegay oo ku dhahay, macallin, wiilkan si fiican wax iigu bar. Aqoonta aa haysato waxaan rabaa inuu wax badan ka faa'iido. Runtii macallinkii wiilkii uu soo dhaweeyay, gacmo furan ayuu ku soo dhaweeyay. Muddo dheer kadib wiilkii waxa uu bartay cilmi fara badan ayuu ka faa'iiday macallinkii. Maalin maalimaha ka mid ah waxaa dhacday macallinkii inuu inankii si xun u qaraaco sabab la'aan, asagoo waxba samaynin, asagoo dambi gelin ayaa la garaacay. Runtii inankii aad buu u carooday. Wuxuu ku laabtay qasriga aabihiis. Qasriga markuu ku laabtay, aabihiis uma sheegin. Wuxuu is dhahay, aabbo haddaa u sheegto kuma aaminayo. Runtii wiilka wuu ka xumaaday qaraacaas la qaraacay. Nasiib xumo waxaa dhacday inuu boqorkii geeriyooday. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa oofsaday. Xilkii waxaa la wareegay, inankiina ayaa la wareegay. Markuu la wareegay ayuu amray ciidamadiisa qaaska. Wuxuu ku dhahay, waxaad tagtiin tuulo hebel, waxaana ii keentiin macallinka aqoontiisa sareyso oo tuulada ku nool. Askartiisa khaaska way baxeen, wayna soo wadeen macallinkii, waxayna ugu keeneen qasrigiisa. Odaygii markii la horkeenay boqorkii yaraa ee aabihiis dhaxlay, wuxuu odaygii ku yiri, odayahow, ma i garanaysaa kumaan ahay? Odaygii wuxuu ku jawaabay, haa, sidaanan kuu garanayn, miyaanad arday ahayn inankii boqorka noqday ee aabihii dhaxlay? Aad ayuu uga carooday arrintaasi, balse markii kale isagoo madaxa ruuxaya wuxuu ku yiri odaygii, yaah, weliba waad i xasuusataa miya? Waxaan ku weydiiyey, maxaad maalintii igu kaa dambeysay aad sabab la'aan si ba'an anoo waxba galabsan ii garaacday? Odaygii wuxuu boqorkii yaraa ugu jawaabay, waa runtaa, si ba'an ayaan kugu xadgudbay. Odaygii isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ku yiri, maadaama ay ahayd ujeedada aabbaha oo nin wanaagsan ahaa ii kaa keenay, ayay ahayd inaan aad ugu dadaalo tarbiyadaada. Waxaan aad ugu dadaalay inaan wax kasta wax ka baro. Inankii boqorka noqday ayaa odaygii hadalkiisa hakiyay oo ku yiri, in dadka la iska garaaco oo weliba karbaash lala dhaco ma wax la bartaaba ama dadka lagula dhaqmo? Odaygii indho-garadka ahaa inta uu dhoola cadeeyay ayuu ku yiri, waad ka hagaagsan tahay sida aad tiri, kadib markii aan u arkay casharo badan oo aad nolosha iyo waayo-aragnimada aad uga baahan tahay in aan ku siiyay, iyo anigoo ku arkayay inaad maalin aabbaha oo shaqsi wanaagsan ah dhaxli doontid. Maalintii igu kaa dambeysay, casharka aan kugu yaboohay wuxuu ahaa kii ugu muhiimsanaa ee aan ku siiyay. Waa kii aabbaha ku hayay muddadii dheereed ee xukunka hayay, dadkuna ku jeclaadeen. Adigana waa ka xukun soo dadejin badan tahay. Waxaan sabab la'aan kuu karbaashay, kula dhacayba karbaash. Waxaan doonayay inaan kuu dareensiiyo foolxumada dulmiga leeyahay iyo inaadan cidna dulmin. Boqorkii yaraa wuxuu madaxa ka dhunkaday odaygii, wuxuuna ka dhigtay la taliya. Wuxuuna mar walba u hanqal taagi jiray inuu ka helo waayo-aragnimo dheeraad ah. Odaygii boqorkii yaraa wuxuu ku gargaaray inuu noqdo waayo-aragnimo iyo nin boqor ah oo caadil ah. Sheekadani waxaynu ka qaadanaynaa in aan laga maarmin waayo-aragnimada iyo dhaga u raaricinta dadka waayeelka ah. Halkaasna waxaa inoogu ag walaalayaal qisadeeni maanta. Fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalka Darul Khayr Media ee Naciim Studio, subscribe saar, sidoo kalena gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub oo aan soo gelino. Wassalaamu calaykum
waraxmatullaahi wabarakaatuh.